يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى. أما بعد، والله ليال waxaynu isku dhiirigelinaynaa waxbixinta bisha Ramadaan. waa bil baahiduna aad u badan tahay, duruufta dadkeena iyo dalkeenana aynu ognahay, miraaran wa tikraaran, mar iyo labiyo ka badan ba inaynu isku celcelino wey. waxaynu ka hadlaynaa laba arrimood: sadaqada fadligeeda iyo faa'iidadeeda. way kala duwan tahay sadaqadaas, iyo sunno iyo faralba way leedahay. qof waliba waxa ugu badan ee ka go'ay karu bixin karu ku dadaalaya, waliba waqtiga fadliga badan iyo ciida baahidu ku sii badan tahay in loo dadaalo. waynu soo aragnay daliilo dhowr ah oo aynu soo akhrinay. waxa uu ka warramayaa ibn qayyim rahimahullah dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam si aynu ugu dayano kol gaari mayne. nabigu sifooyinkiisii sharxayo waxa uu wa kaana al-ataa wa sadaqatu ahabba shay'in ilayhi. nabi maxamed waxyaabo aad u jeclaa waxa kamid ah wax bixin. wa kaana sururuhu wa farahu bima yu'tihi a'zama min sururi al-akhidh bima ya'khudhu. qofka waxa la siinaya intuu jecel yahay in ka badan ayuu nabigu jeclaa, waayo wuxuu og yahay inuu isagu badsanayo faa'iidada. dabayl la diray uu kasii uga degdeg badnaa deeqda, waliba waqtiga bisha Ramadaan. marka had iyo jeer qof baahani uu yimaado, aathara calaa nafsihi wa taaratan bidacaami wa taaratan bilibaas. qofka naftiisu uga doori jiray oo naftiisoo shaygaa u baahan, dhar iyo dhuuniba ayuu qofka ku horraysiin jiray. wayuuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. oo way dhacday inuu dee mararka qaarkood dadkii wax u baahnaa iyo raashinkeenna siiya. way dhacday mararka qaarkood inuu nin caashaqay labisku xidhnaa intuu guriga tagu u soo laablaabay. waxay naga suuro geli kara maaha. macawistaadaas way wanaagsan tahay, dee waabaan kugu wanaajin doonaa, isagiibuu siiyeyba. rasuulku sala allahu calayhi wasalam aad bay naftiisu ugu raaxaysan jirtay shayga uu bixinayo. halka innaga ay ku adagta cidhiidhiga aynu dareenno. wawajadaka caa'ila faaghnaa. ilaahay baa wuxu uhi adigoo faqiiruu rabbi ku helo qani buu kaa dhigay. qaninimada meelaha ugu sarraysuu gaadho ah al-istighnaa'u cani ilmaal laa bilmaal. qaninimada mar waxaynu inagu ka raadinaa xoolaha inaynu ururino, laakiin isagu wuxuu ka raadinaya inuu ka maarmo. asxaabta wuu la hadlayo waxa uhi maa yasurunii ana lii axadan ana lii uxudan dahaban ta'ti calaya halaath wa cindii minhu diinaar ilaa diinaarun arsuduhu lidaynin calay. anigu kuma farxaya buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam in la ii dhiibo buurtan uxud wax la-egoo dahaba. waa buur weyn oo madiine agteeda, kadibna uu agtayda kusoo hadho gini. haddii dadka wax maamula ay ku dadaalaan intuu mansabka hayo inuu kabaha ka subkado waxaad u urursado, awdhaa inaad kusoo noqon alla garanayba kun ka gaadhsii. isagu nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, waxa aan hayee buurta uxud la-eg ee dahaba ma jecli inuu hal gini ama hal shilin igu soo hadho oo gabalku igu dhaco, ilaa mid aan u kaydinayo mooyaane dayn. dayntu waa musiibo, markaa wixii aan dayn ku bixinay waan dib dhigi karaa, laakiin wixii kale waan kala diraya. waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayu sadaqati acdam. waa su-aalay nagu matelaan asxaabtu allaha ka raali noqdo. waxaa la bixinaya dhiiri gelise maxaa u weyn u fadli badan, ama sadaqadu waqtigeeda u fiicanta.
ونوت المام النبي يقول إن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وقت هذا وفي عنتها وحوي وقت نفتك وأرقتها وأمرك العافية ما رقبته يتبهاش مالك على سنيسو يتكعب سنيسو إن العيلو dadna higsanaysa isleeda hebel gaad dareenka noocaas markuu jiro qofka iska fujiya kaasa ay sadaqadiisu fadli badan tahay uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wasayru deew badan oo qofkii wuxuu isla shaydaanku wuxuu koray inta hadaad bixiso wasaarad ba iska jiro wax waliba way kala xidhan yihiin deestii wax isugu ka qaban ba moojiyo way kala kici inta iska hay waxa soo ku akhriya kii la inagu saleeday naftiina way iska caafimaad qabtaa qofku markuu cuduraysan yahay هذه يجروا كان النبي الشجاع وحول ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان والبهاشة دي بهود جينا بروحها بحنا يساء دي بهود جينا إلى أي نفط سوق قالوا هل كان كالحماه والسكرات وقوات كارو هل كان مركي قالوا بعض أياد كلبت بلانتون تاما أدلانتون تا أنت هذا الله سي أنت هلا سي أنت فلان الله سي أرهويا هبل كاسنة سجابيش وابد حقوق قادم دون ولا انتهى الله سيء عوال أبالك وما قبوا اختجاسه كجرسيب النبي الله صلى الله عليه وسلم وتردي وينيد بالنبي ونسينا عليه الصلاة والسلام كقف وحي سوين قرش سنادان وحب حنا يوم معلنتي بشي سنتك عمر جيسة وين ترتيب سيهين يوح عروته وقت جيبه صدقة فضل جيدا يفا إذا ذا وحى كم إذا هدي صدقة إلهي درادي أي تمال حلال أي تهي أضعاف تيدو يسيب بدنيسا أنتوا إلهي اللابلاوية أدبي وسيب بدنيسا مركب الكفر سوحد بحنيسو النبي عليه الصلاة والسلام وحاول حديث بخاري كسبنا من حديث أبي هريرة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب قفك وحكب بحياة حولها حراشة إلهينا حلال بواقبلاية لهذا الحرام ورسول الحيق ضعيمون دبنا وكفوري مركا قفك حلال بحياة النبي يقول فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها إلهي ميدك تيسو كجاك قدوما يا صدقاً قفك وكبعين يا وبضنا كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل فرسكي سيرسد قفك وكريو أو ناحية يسوق قاعد يقول نغضه فولها الدو بوربا إلا يستقبلون يقول صدقاً مركب مالنت قيامهم بقفك إيجي يا وحورنا يا كنا حاجان كهلا وصدقاً النوع هاي السيدة ونكسر بحس كنا حاجان كهلا وصدقاً النوع هاي وفرح يا مالنت قف إذا مركا وحو شيء مهم كهي وحويان وتيادا شيء ترادا معها تيادا مهمة إنما يتقبل الله من المتقين فإذا إن كذا وحكم إذا الدم بجان إن الرباي إنه له رأي إنه صدقة إلى هاي نجرب يا سبحانه وتعالى وحيابها إلى هاي والدم بجان كل عاف كأنه أقول بدون حكم إذا صدقة النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وحكول ألا أدلك على أبواب الخير الباب هذا خير كلا قال ما كنت سياسيات شانس كوقف إذا ستة عمرية الصدقة جنة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صوم كوا قاشام الله ينقى أقبله عبادة دائما كوكا وين الصدقة وين صوم هاي مركز صوم كو نارتا يحمانتا انت بقى قاشام بوكية شيطانك نارتا حمانتا انت بقى قاشام بوكية صدقتنا waxay u baqtiisa waxaan la yiraahdo dambiga sida uu dabku u baqtiyo biyaha dabaxaya hadii biyo lagu shubo iska baqtiya marka waxaan kugu baxaya ku kululeynaya noloshaada iyo cimrigaaga iyo raaxadaada iyo dalkaaga iyo dunyadaada kululeeya ee dambiga ah sadaqada lagu qaboojinaya waa nusuustii baynu ku jirnaa fadliga iyo faa'iidada ka waramayay faa'iidada waxa kamid ah nabaa'ul maali wa ziyadatu xooluhu inay ku kobcayaan waxaanaynu bixinayno way ku badanayaan isaga nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma naqasat sadaqatun min maal xadiidkii muslim ku sugnaa sadaqadu xoolaha waxba kama yarayso haddaba aragta muuqaal ahaan inay dhimantay macnawiyan bay xoolihii u kordhayaan way barakoobayaan wuxuu ilaahay ku barakeeyaa baana ku xisaabtan leh oo gundhig yeelanaya فإذا كذا وحكم إذا استدلال المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة قال إن تذكر بعض بهيب بدأ يظهر سنيس
oo dadkuba iska kadeedan yihiin oo ay kulul yihiin oo qorax la soo dhaweeyo dadku ilaahay u hareynaya saad garanayso waxa kamid ah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu qof wuxuu bixinay aad u qariyo dadkii u baahnaa siiyay iyo meeshii ku haboonay sadaqadu marka waxyaabaha qofka bani aadamka ahi oo ka dareemaya adduunyadana diiqada ilaahay baa kaga fududeeya subxaanahu wa tacaala sadaqada kuwa si fadli badan waxaa ka mid a sadaqada joogaysa ama sadaqa aljaariya la yidhaahdo naaska irbaana ajrigeedu qofka u soconayo wadooyinka la samaynayo ceelasha biyaha guryaha masaakiinta iyo fuqaradu ay hooyanayaan berigii hore waxaa jiray wax la yidhaha ribaado tujaartii iyo maalqabeenku intay lacag iska ururiyaan baa waxay dhisi jireen boqolaal guri ama kumayaal guri masaajidada loo qaybin jiray guryaha waxaa geli jiray dadka culimada diinta faafiya iyo tulaabul cilmiga jaamacadaha diiniga wax ka baranaya iyo fuqarada iyo masaakiinta iyo mujaahidiinta xaasaskooda ayaa loo qaybin jiray marka u soo dawalaya siina soo siiyadana yaraan jirtay la culays badan baa dadkii ka degay waa waxyaabihii ay ku dhisnay jaamacadihii u horeeyay jaamacada kamid ah la yiraahdo jaamacatul azhar oo berigii hore al-jaami'ul azhar baa biduni ta marka ay ma badan wax ka baran jiray waxa laga biilin jiray ay gali jireen guryaha raaca jaamacada gumaysigii macatan ku dirirka waqtiyadu yimid Faransiiskuna waxyaabihii horeeyay kala dagaalamay kamid ah awqaaftaas marka qadiyadaasi aad bay muhiim u tahay inay dadku biyo la'aanta ka baxaan oo wadooyin wanaagsan helaan oo masaajidada madbacadaha kutubta daawacaya iyo goobaha wax lagu baranayo ee madaariska iyo quraanka kariimka iyo cilmiga والناس تربان حلقة ما ماشان إنه كنتم سنة شرتو بقول سنة شرتو أنت هذا الناس ويرماي هاي قف كانوا الصدقة دي لقد بدرية إذا ما ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له صدق قفكم مركب ده أنت عمل كيسو تشوك سيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدح بان استاجي marka daliilada laga soo ururiyo saddex way ka badan ilaa 10 shay bay noqdaan waxa kamida sadaqadii qofka u soconaysa ama isagu ha bixiyo ama ehelkiisu ha u bixiyo iyo cilmigii lagu intifaacay ee ummadda uu baray ee ummadina si baahinayso iyo waladkii wanaagsanaa ee u soo ducaynay marka qofka maal qabeenka ilaahay khayrka waafajiyo waxa laga yaabaa dheeraadiyadoo dhan inuu qaato oo dadkan kala duduwana khayrka qabanaya mid walba kaalintiisa uu buuxin karo sadaqadaasi si ay tayo wanaagsan u yeelato aadaabba quraanka iyo xadiidkuba ay nabarayaan toddobadan arrimood ay kamid yihiin al-ikhlaasu lillahi subhanahu fi sadaqati qofku markuu wax bixinayo waa in daacadnimo jirta inama yataqabbalu Allahu min al-muttaqiin daacadnimadu aad bay muhiim u tahay oo wax amalka tayo u yeela liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amalka wanaagsan waxa uu ku wanaagsanaada markaad ilaahay kula ballanto subhanahu wa ta'ala waxa kamida inaanad ku dadaalin hadiyo jeer waxa la yiraahdo radiya min ta'am wa libas wa ghayri waxa liita oo mar hadduu yahay shayga aayaha dambe iyo aakhiro waxa u dhiganayso adigu hays caameeyni qof wax caameeyo isagu is caameeyba ugu daran marka waxa aad jeceshay in lagu siiyo dadkana sii ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ama ku weydiiyay ilaahay waxun ha u qoorin waxa wanaagsan baa aad u fiican sida quraanka ilaahay lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun asxaabiga abi dalha looranay markuu aayada dhageystay macnaheedu yahay wanaaga doonaysaan gaari meeysan ilaa waxa jeceshiin wax ka bixisaan deew nabigu yima wuxuu anigu beerta faras magaalaha ku taalaan u jecelahay beerta sana bixi nabiguna kuma xilina wuxuu waana laga gudoomay maal baraara iyo bash barwaaqad kala kulmi laakiin bal dadka qaraabada ah kugu xeeran u qayb sadaqadu waxa laga ilaalinayaa al-mann wal adha sida aayadka ilaahay nagu faraya al-mann wal adha inuu qofkii tar sheegto oo dadka uu wixii uu siiyay aad u sheego taa waa la diiday oo way ka xumaynaysaa iyo dhibaatada inaad raaciso waxa ay nala gudban inayna ku bakhaylin wuxuu ilaahay nasiye subhanahu wa ta'ala
وبخيل لماذا قار كيد بقف كل نار مضانية سيدا واجبات كهاتي وكو بخيلو سكدا مصاريفتا حقوق كو واجبتا ورن هدو قف كو أضيقو نار بكو متيسنية بخيلي الشحيح بالإله marka qofku waa inuu ogaada ilaahi waxa siiyay inuu faray qayb kamida inuu bixiyo waanfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi mustakhlafku ilaahay idin ka dhigay ilaahay baa ku dhibay ku farayna inaad inta bixiso marka si aanu kaaga wareejinin oo cid kale ugu wareejinin isaga ka tala qaalaha ku biiriyeen waxa kamida Allah yahqira sadaqatu min sadaqati shay'an waxba yaraysan sadaqada dumarka markuu dhiiri gelinay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ciiga iyo hilibka la isasiinayo waxa uu xataa firsan ulshaa neefka ariga raafkiisa ama cagtiisa hoos sadaqada aad u bixisida yaraysan maxay waxaan ciiga uga bixinaynaa oran iyo waxaan macna ma laha dad buu macna u sameynaya adigu bixiyo kolba wixii aad helayso aadaabta waxa kamid ah Allah yarji'a fi sadaqati qofku wuxuu bixiyay aan ku noqon waa gobonimo daro wana dhaqan wanaagsaneyn way dhacdaa dadka qaar kood inta ay isjecel yihiin inay wax xisasiyaan markay isnacaana u dhacdo waxa ay soo celin laba isku wanaagsaneen way isaseegnaa waa ku khasaaray kaasaan ku siiyay soo celi kaana soo celi ooridaadana ma oran kartid ubadkaagana ma oran kartid xididkaagana ma oran kartid dad ba hadiyad bay siinayaan yarad iyo gabaad iyo sodoho wax la siiyay waxa soo dhan markuu xaaskii furaagu leeyahay xoolahaasina way ga bixeen haddaan xilawaay xoolaha iga waa inaan helaa oo qofkaad ku iibsanaysay xoolaha bise waxaan hadiyad iyo hibo dad la xidhiidhay aad says waxba uga ma soo noqonayaan waa ceeb iyo cayd marka qofku uu isku dayin wax uu hore u bixiyay inuu ka daba tago ama dabada haysto iraada ana si maamulaya waxba maamulina iskaga ha rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam tusaale cajiib ka bixiyo qofka intuu wax bixiyo ku noqonaya wuxuu la mid yahay ay hun qaacay oo hun qaacadi dib u cunay saddex jeer buu tusaale u xiyay arrimahaas oo dhan waxay ka mid yihiin aadaabta ku tayeynaysa ku qurxinaysa sadaqada wadin mayna waxaan ku soo ururinaynaa waqtigan baahi badan ina way jirtaa dadka qaar kood baan raashinkii haynin qaar kood baa ciyaalkii daba cararayaan oo dharkii loo haynin qaar kood baa buko oo xanuun haya marka mid ka dhow iyo mid ka dheerba mid mii jooga iyo mid magaalo jooga qof waliba waa inuu dib ugu noqdaa wixii uu hayo si mug laho miisaaman amaahda ilaahay uu isaga hagaajiyo isagaanay account-ka u sii yaalaa aadaabtaana in la ilaaliyo si uu shaygu u noqdo camal ilaahay aynu ugu tawassulno markay adkaato aynu ugu dhawaano اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة